Garowe waa ay foolanaysaa waxa ayna qarka u saaran tahay martigelinta dagaal culus oo dhiig badan uu ku daato oo u dhaxeeya dawladda dhexe iyo sidoo kale maamulka Puntland. Muuqaalkan waxa aynu ku eegi doonaa daawadayaal xilligani duleedka magaalada Garowe ee caasimadda Puntland waxa ka soconaya dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda iyo sidoo kale isku day dawladda dhexe ay ku doonaysa in gabi ahaanba magaaladani ay kula wareegto. Shalay galab goor dambe waxa si qarsoodi ah uga degtay magaalada Laascaanood ee caasimadda maamulka waqooyi bari General Jimcaale Jaamac Takar oo dhawaan dawladda federaalka ee Soomaaliya ay u magacowday taliyaha qaybta 54 ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. General Jimcaale isaga iyo sidoo kale ciidamo gaar ah ayaa magaaladaas Laascaanood ka degtay haatan sida wararku ay sheegayaan Laascaanood waa uu ka baxay waxa uu doonayaa in qaab xoog ah ku galo gudaha magaalada Garowe ee caasimadda Puntland. Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu qaaday tallaabo culus waxaana amar buuxa uu ku siiyay ciidamada kala gedisan ee Puntland in gabi ahaanba ay xiraan wadooyinka soo galaya magaalada caasimadda ee Garowe taas oo markaas ka dhigan in markaas aan loo ogoleen General Jimcaale Takar in uu markaas gudaha magaalada Garowe u galo. qaar ka tirsan ciidanka xoogga dalka kuwa taabacsan General Jimcaale oo gudaha Garowe ku sugan ayaa iyagana warbaahinta la hadlay waxa ayna sheegeen in General Jimcaale cid ka hor istaagi karta magaalada Garowe aysan jirin Garowana ay nabad tahay dawladda federaalka iyo ciidanka xoogga dalkana amarkooda uu ka shaqeynayo. xeerar la yiraahdo liigle oo ku taala duleedka magaalada Garowe ee dhanka markaas koonfureed ayaa meesha maanta ay sida weyn dhoolatuska ugu sameeyeen ciidanka ka amar qaata General Jimcaale Takar halkaas oo qoryaha waaweyn noocyadooda kala duwan ay tijaabo xabad ridis ah ku sameynayeen. haddaba magaaladii Garowe ahayd ayaa markan qiilqiil ku jirta waxaad moodaa Saciid Cabdullaahi Dani in godkiisa markan biyo ay ugu galeen. General Jimcaale laftigiisa waa uu hadlay bartiisa gaarka ee Facebook ayaa qormo yar oo micno badan leh markaasi uu ku soo qoray waxa uu yiri cid iga hor istaagi karta galitaanka magaalada Garowe male amal ninkii yaqaana hadal u dhigan ayuu markaas isagu soo qoray. haddaba xaaladdu markan waa ay qasan tahay dawladda dhexe waxa ay go'aansatay burburinta maamulkaasi Puntland haatan deegaanadii kale haddii ay noqon lahaayeen gaalkacyo iyo bari waa la iskala tagay oo magaalada Garowe ayaa lagu gorgortamayaa. warar xasaasi ah iyo xilligan waxa ka soconaya magaalada Garowe tallaabooyinka uu qaaday Saciid Cabdullaahi Dani Jimcaale Takar oo ah ninka markani doonaya in magaaladani uu u gacan geliyo ciidanka xoogga dalka lagana farmaroojiyo maamulka Puntland